dadka Soomaaliyeed oo maqan horay baanu u sheegnay in ay ilaa aanu doonayno inay ku soo biiraan dalkii hooyo taas waxay rabtaa wax qarsoon ma aha haddaba habka lagu doonayaa waa kee awalan siyaasad kaligeed meel fariisan kartaa ma jiro siyaasad kaleeto iyo ama dhasha ama ku xiran tahay siyaasadda weyn anagu aan qabnaa marka waxa weeye meelo badan baa Afrika laga gumaysanaya Afrikana waxaan is leenahay xornimo siyaasiya waxun waa ka haysa laakiin xornimadu runta ah siyaasi kaliya ma aha way ka sii ballaaran tahay waxa weeye dhaqaalaha waxa weeye samcada waxa weeye macaamilka iyo isku tagga waxa weeye qaybta xaqa inay ka qaadato adduunka maamulka la maamulayo ayaan daro kama qaadatay waa loo taliya marba tala la goostaa ku soo filinta marka waxa weeye markii taasu ay nagu jirto Afrikaanimo weyn ay nagu jirto haddana waxa ka dhaxeeya annaga iyo wixii jiraan ka naga sideeba loo maamulayaa way hadal waxay marka taas ugu dhalinaysaa awalan dad ahaan iyo dawlad ahaan ma aaminsanin dad Afrikaan in tabanaatiikh isugu dhiibaan ajnabi ay isku baabaashaanin ma aaminsanin dhiiga Afrikaanku intii la dhaqaaleyn karo la dhaqaaleeyaan qabna marka duntii Soomaaliyeed waa joogtaa marka waxa weeye siyaasaddanadu inaanu ku wadno ilaa aakhir lacda waan ka gaarinaa aad baan ugu kalsoonahay si sharaf leh oo dawaa'ilkaas dalalkii Soomaaliyeed qaarkood haysta iyagana aan ceeb ku ahayn annagana aan dirin lagu ahayn inaan wax u qaybsano wax naga dhaxeeya oo aanu ka gaarno caqligu inuu taliyo intii qorigu iyo ninka ajnabiga oo isticmaalkooda daaqada taagan intay talin lahaayeen caqliga Afrikaanku inuu taliyo hase taliye markaa inuu ku taliyo mid roon oo ay u aayaan ilmaha Soomaaliyeed dambe saas baanu annaga ay noogu dhisaalaysan dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheena dariskeena ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaalla oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay naqaybiyaan annaga walaalahan annaga intay naqaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhexdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danaha annaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu guddoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xun ugu guddoomiyeen ayaa qoomkaas yidhaahda ama shicbigaas yidhaahda haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan waxaan anigu taa ka leeyahay ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestatan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doona marka wax tirtiri kara ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u guddoomin dadkanagii oo isku laynaa mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaalla ay si fiican inta ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaala ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jiraa inay ku qaybsadaan sidaas xaqa ah haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaano Soomaaliya Franchise waxaan sunnaynahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada safkaradkaas waa inuu u socdaa oo ay dawladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay u ogolaato khiyaarkooda inay u ogolaato xornimadooda inay inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Frenchiga inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaasu waa talada ugu fiican
ama waa siyaasadda ugu fiican baan isleeyahay